dhaawaca soo gaaray qalbigayga isma aanan lahayn wuu soo gaari doonaa. hadallada xanafta leh ee aan mar walba maqli jiray iyo talooyinka ay sii jireen saaxiibaday intaba waxaan ka ahay dhagool. laakiin dhabtii xaqiiqda maanta ayaan ogaaday. waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo xanuun badan waxaana nala soo wadaagtay walaasheen Maryama oo magaceedu noogu soo koobtay. Maryama waxay ka mid tahay saaxiibada ku xidhan barta YouTube-ka ee Socdaal 24. qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Maryama waxa ay ku nooleed magaalada Beledweyne. halkaas ayay ku soo barbaartay oo dugsigeeda Qur'aanka ku soo dhameysay. Maryamo hadda waxa ay dhigataa dugsiga sare ama fasalka ugu dambeeya ee Form 4 ama fasalka 12aad hadba midkii aad taqaan u qaado. Maryamo markii ay marayso fasalka Form 1 ayay waxay isbarteen mid ka mid ah wiilasha ku noolaa magaalada Beledweyne. Maryamo waxa ay ka mid ahayd gabdhaha ugu quruxda badan ee ku nool magaalada Beledweyne. markii ay soo labisato qof walba oo ku nool magaalada Beledweyne ama dhalinyarada ku nool magaalada tartan ayay u gali jireen. waa aamusana afgaaban ayay ahayd, laakiin quruxda iyo isteelka iyo jirkeeda sida u quruxda badnaa ayaa nin walba waxay u sawiri jiray in mar uun Maryamo oo diris la noqdo. inkastoo ayadu hadafkeedu ahaa waxbarashada inay guul ka gaarto, meel fiican ay ka gaarto, qoyskeedana meel fiican ay gaarsiiso. Maryamo oo sidaas ahayd ayaa dhowr qofood xiriir u soo bandhigtay ayadoo oo markaas ugu jawaabtay inay ku jirto heerka koowaad ee waxbarashada, laakiin haddii waxbarashada ay dhamaato wax walba imaanayso. Maryamo saaxiibadeed intuu iskuulka la joogo badanaa lama sheekaysan jirin. sidoo kale Maryamo maana ahayn qof bareega banaanka u baxo, inta badan waxa ay joogi jirtay galaaska oo fasalka ay iska joogi jirtay. Maryamo fasalkii Form 1 dhamaadkiisa ayay waxay isbarteen wiil lagu magacaabi jiray Maxamed wuxuu ahaa galaaska Form 3 wuxuuna dhiganayay isla iskuulkaas. hadal iyo kaftan dheer waa ay isbarteen, lambarada ayaana sidaas lagu kala qaatay. Maxamed wuxuu ahaa haldoorkii ugu fududaay iyo haldoorkii ugu fiicnaay ee Maryamo daqiiqado yar la sheekaystay kadibna lambarka la qaatay. Maxamed dardaarankii iyo hadafkii maalinkaas uu bilaabay ilaa maanta waxa uu hantay qalbigii Maryamo hadallo qurux badan, suugaan qurux badan iyo ereyo qurux badan kadib Maryamo waa uu soo jiitay. bilowgii fasalka Form 2 wuxuu ahaa bilow labadooduba u qurux badan. qof walba oo ayaga ka midana wuxuu ahaa goormee xariga faleenbada la suri doonaa. xarigaas oo ah xarig aad ay u rajeynayeen, laakiin haddii aan si guud ugu sheego waxay ahayd kee baa dhihi doono jacaylka waan soo gudbinayaa oo garabkayga ayaa tahay, adiga ayaa noloshan kuu quuri doonaa, wax walba oo aan rajeynayna adiga ayaan ku sii doonaa. boqorkii Maxamed ayay kaasi ka soo yeertay. bilowgii fasalka Form 2 Maxamed ayaa bilaabay jacaylka asaga oo markaas dhahay Maryan, anigii adiga muddo ayaan isla soconay, maanta ayaan rabaa xiriirkeena jacayl ee quruxda badan inaan halkan ka daadihno. Maryan oo dhig la qabta lahayn awalba ee ka ahayd Maxamed ha soo tuuro ayaa dhahday geesigaygiyo aniga xitaa aad ayaan u jeclahay inaa adiga xiriir kula sameeynay, waan ku faraxsanahay. halkaas ayuuna ka bilowday xiriirkoodii jacayl ee quruxda badnaay. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad qisadii xanuunka badneed. aniga nafta ayaan u huray, asagana wuxuu ahaa khiyaanoole iyo dilaay qarsoon. qalbiga ayuu iga toogtay wuuna iga tegay ilaa dhammaad. nala soco maantana qaybta koowaad ayay noo ahayd. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. intaa ku kulmi doono qaybaha kale waxaa idin leeyahay nabadgelyo. qaybta YouTube-ka xoogga noo saara.